ma dhici karto suuqa weyn Hargeysa lagu dilay lamana garanayo cidii dishay waa arin la yaab leh kitaab gaar ah buu sitaa oo marba beesku doonayo la soo baxo jimcaba cidu ataagayo ama qofku nicay bari hore ee musabix xukuumadda haystay waxa weeye qodbadiisu waxay ku koobnayd Subeer Awal iyo Musabix Cabdi dadka Soomaaliland wixii la saacanood ka dhici jiray inay Hargeysa bartigeeda ka dhacaan oo caasimadda la isku toogto foolxumaanu aragnaa dawladana waxay ku bilowday sadaqo ay ka bilowday shacabkii reer Soomaaliland taliyayaasha ay ku bilaabeen walina way wadaan xaaje tuuliyo sameysay tuuranaga tago dawladii hore waxay ku tagtay teedii baad sameynaysaa haybna caybka anagu waxaan ku leenahay markaa ku xigta ee dhibaatada inta leegna loo geysto falcelin degdega gasaar baa la naga dhigay saribadii baanu noqonay ilaahu naga jooji dawladdan waxaanu leenahay man arsan karan laana dalkii dadkaanu jecel lahay labada inan dilay wajigu soo duubtay askartii daba socotay laftooda waxay ahayn kuwa garab siinayay dilka ninka geystay markuu roogii laayayna uu cararay askartii la socotayna xabad bay shicibka ku furtay si aan loo qaban gudamalaha madaxweyne Kacbaanu leenahay madaxtooyada Soomaaliland dhakhtarka weyn waxay u jirtaa 400 talaabo wax ka yar inaad dhalinyarta la laayay aad ka jawaabto oo aad tagto oo waliba aas qaran u sameeysan kaaga fadhinaa raadku halku galay waa la og yahay cidii ka dambeysay waa la tuusan yahay wax badan baa ayaa jira ceeb ayaa lagu halala galay aad baan uga xumahay anigu xasan ahaan ummadda Soomaaliland maaragtay aad bay uga tiiraayaysantahay waxyaabaha dhacaya ururka Jiidali oo munaasabad soo dhaweynaya casho sharaf ah u sameeyay afhayeenka beelaha Subeer Awal Awil Cilmi Rooble oo booqasho ku yimid dalka Jarmalka munaasabadan oo lagu qabtay magaalada Essen ee dalka Jarmalka ayaa waxaa ka soo qayb galay hoggaanka ururka Jiidali madax dhaqameed iyo mas'uuliyiin ka tirsan axsaabta siyaasadda Soomaaliland oo ka kala yimid wadamada Holland iyo Jarmalka mas'uuliyiintii iyo xubnihii halkaasi ka hadlay ayaa ku dheeraaday tacaddiyada xukuumadda ay ku hayso shacabka Soomaaliland iyo dilalka qorsheysan ee dalkeeni ku soo badanaya suuqa bartamaha Hargeysa caanaariya ayaa lagu toogtay namada iyadoo dilkaasi waxa say dawladdu u sheegtay dil qorsheysan oo laga dambeeyay sidaan xogta ku helnay markii ninku labada inan dilay wajigu soo duubtay askartii daba socotay laftooda waxay ahayn kuwa garab siinayay dilka ninka geystay markuu roogii laayayna uu cararay askartii la socotayna xabad bay shicibka ku furtay si aan loo qaban waa sida warbixinta lagu soo gaaray markaanu wareysanay ehelkii laga dilay labada nin waxaa dhacday inay dawladdu tiri waxaanu haynaa 85% dilkuna dil qorshaysan buu ahaa dabagal markii kadib ay sameeyeen dheer reerkii laga dilay caruurta inamada kaameradii meesha laga duubay waxyaabo badan baa iyagana uga soo baxay inta ay dawladdu haysay in ka badan bay iyaguna hayaan marka baaq dheer waxaan halkan uga dirayaa dawladda Abdiraxmaan Ciro madaxweynaha uu yahay markuu kursiga fuulayay wuxuu ku fuulay inuu keenayo isbedel ka soo noqday inuu ka beel u beegsado beel leeyahay Subeer Awal kumnooriye mudanayaal dadka sharafta leh halkan iskugu yimid maxaa hayday soo dhaweynaya afhayeenka Subeer Awal ee qaaradda Yurub iyo qurba joogaba aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa isagii martida sharafta leh wada hareero fadhidaba anagu waxaanu nahay Jiidali baanu nahay Holland baanu ka nimidnay reer Jarmal wad mahadsantiisa noo soo dhaweyseen waan idinku faraxsanaynaa idin nimaadna caawahan oragaygaas maxaa hayday sida fudud loo laynayo maxaa hayday gasaar baa la naga dhigay saribadii baanu noqonay ilaahu naga jooji dawladdan waxaanu leenahay man arsan karan laana dalkii dadkaanu jecel lahay qadiyadaanu jecel lahay calankaanu ugu qiimo leh dawladnimada qiimo nagu leh san u xishoonan idinkuna wayna nooga xishootiin haddaan Subeer Awal nahay marka Subeer Awal maaha saylada way ka sharaf badan yihiin wana ka qiimo badan yihiin marka sharafta iyo qiimaha Subeer Awal waa in la ilaaliyo dawladnimaduna saasay ku jirtaa ay ku qurux badan tahay xukuumadana waxaan leeyahay waxaan u marinayaa halkan cambaarayn inay ka dadaalaan meedka ku jira talaagada oo 3 wiiq qaatay oo muddo dhaafay inay ka jawaabaan
oo reerkaa qanciyaan awlaadana la aaso muhiimaddu waa intaa waxa weeyaan dadka Soomaaliland wixii laascaanood ka dhici jiray inay hargeysa bartigeeda ka dhacaan oo caasimadda la isku toogto foolxumaanu aragnaa dawladana waxay ku bilowday sadaqo ay ka bilowday shacabkii reer Soomaaliland taliyayaasha ay ku bilaabeen walina way wadaan marka u malayn maayo xukuumaddan inay sii socon doonto isaanaga calanka noo muhiimada ugu adaga aanu diraynaa baaqa halkaanu ka dirayno haddaan nahay xusbiga kulmiye iyo haddaan nahay ururka jiidali iyo haddaan nahay qurba joogtaba dhamaantood anagu afkooda ku hadlayna baaq dheer waxaan u diraynaa in awlaada yar la aaso soona qabtaan ninkii geystay waxan waana la og yahay waa inay ka dadaasho uu ku ceebaysan madaxweynuhu waa inuu la shiro ciyaalkaasi dadkay ka geeriyoodeen caruurta yar waxba may samaynin waa awlaadayadoo kale way dhiman lahaayeen oo saacadooda may dhaafeen isaaco imika cadaaladda raaligu dilay cabsi bay ku tahay daraamay ku tahay reer Soomaaliland oo dhan waa la inuu wada eegayaa taa waa inuu ka dadaalo madaxweynuhu oo baaq degdeg ka soo saaro oo ciyaalkaasi dub ugu sii jirin talaagada waayo annaga murugaynu ku tahay horena uga may dhicin Soomaaliland inay ka dhacdana ma rabno maalin walba mid baa meel lagu dilaya labadii hore maalinta dhawataan ogeyn taliyibaan ogeyn adan ciyaal yar baa madaxa laga tugtay Soomaaliland taariikhda intii la isbedelayay may dhicin sida xilka u doonaysay dhamaystir baan u leenahay maaha kursi la fariisto nolosha aad baan idin salaamaya salaam alaykum warahmatullahi wabarakatuh xildhibaanadii aan u dooranay annaga ka beel ahaan ee nimada matali lahaa fanaaniinba ku mashquulsan soo dhaweyntooda oo laab saalax ka mid yahay waxaad arkaysaan agaasimihii dhammaan madaxtooyada Soomaaliland oo habla istilay oo dumar oo waliba meediyaha dadka ku jira heshiisiinaya marka Soomaaliland maanta xaaladeedan ognahay oo sanaag ba laga dawlad laga dhisayaa kama hadlayaan kuwii 30 qof baa ku dhintay Jamhuuriyadda Soomaaliland xukuumaddaas intay jirtay ceeb bay ku tahay amniga ahaan madaxweynaha qaranka isaga mas'uul ka ah waxaanu leenahay oo dal iyo dibadba baaqa daranaa inamada talaagada ku jira damqashay nagu hayaan haddii xaqooga la marin waayo cid ugu abaar gudi mayno oran mayno dhig islaam baanu daadinana laakiin ilaahay subxaanahu wa ta'ala awoodiisa isaga leh halka meydka lagu dilana waa ogtii kullu nafsin daaqati mawt ilaahay baa yiri degdeg waxaanu baaq u daranaa haddaanu nay qurba joogta waa fayeenkiina kulliina maqlayo salaadiintii nagu hogaaminayaan dhalinyarta xaqooga hala siiyo degdegna waxaanu leenahay looga jawaabo arrinka beesha faragelinta lagu hayana dawligeed baa la isfaragelinayaa niman baa taraad hadlay suweer awala hadal yiri waan ka gudoonay marka aragno qolada Ciise Muuse nigo weyn Sacad Muuse taano yaraankii baan naayo ilaa hadda reergelintii bay wadaan way samri laayiin qof xun cidna ma matalo qofka xuna ay tamana isagu bay ku koobnaanaysaa waanagan sheebligii ku matalayn reerkeygana ku matalayn Soomaaliland baana ku matalayn madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxna waa lagu xamalayo waxa la adigu waa uu hurdaa malaha madaxweyne Kacbaan u leenahay madaxtooyada Soomaaliland dhakhtarka weyn waxay u jirtaa 400 talaabo wax ka yar inaad meydhamal yarta la laayay aad ka jawaabto oo aad tagto oo waliba aas qaran u sameeysan kaaga fadhinaa haddii kale madaxtooyadu waa naga soo horjeedaa adiga laftaadan ku soo qaban doonaa baan leeyahay ururka jiidali waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin sidaad xafladan sharafta leh aad u soo qaban qaabiseen gudoomiyaha Sakariya Cali Xaashi gudoomiye ku xigeenka hoodo Maxamed Cawaale iyo dhammaan martida kale ee ururka ka kooban jiidali ee aanu ka mid ka nahay ee ka yimi Holland waxaan leeyahay soo dhawaada sharaf baa mudan tihiin gacan ka xaq daran baa dishay lamana haya baa la leeyahay ilaa hadda wixii dilay waa arrin nagu cusub waa arrin nagu uguba waxaanu leenahay dawladdu way ogtahay cidii dishay kama qarsoona laakiin war kale ma sheegin waa in la soo bandhigaa la qanciyaa dadka meydkana la aasaa meydku xirmu leeyahay in badan bay hadda talaagada ku jireen waxaanu leenahay la aaso laakiin waa in la helaa halku galay raadku ma dhici karto suuqa weyn Hargeysa lagu dilay lamana garanayo cidii dishay waa arrin la yaab leh waayo wadanka sirdoon buu leeyahay de wax way qabanayaan garan mayno wuxuu leeyahay booliis wuxuu leeyahay wasiirkii arrimaha gudaha iyo dawladii intii kalaba marka waxa ka yaabisay dadka ay ummadda Ilaahay la yaabtay markii la yiri
boqolkiiba 85 ayay waliba yidhaaheen ayaanu haynaa dadna way u xidhxidhan yihiin haddana ilaa hadda waxay sheegeen ma jirto dee boqolkiiba 80 la sheegayay shantii iyo dadkii xidhxidhnaa dee may ka hadlin may soo bandhigin aasa uun bay yidhaaheen dadkii marka waxaa loo baahan yahay hooyooyinka iyo ehelka dhakhtarka hortaagan intaasoo caanamaal in dhaxanta laga kiciyo horta awalan la aaso laakiin dawladda ay waajibkeedii ay lahayd ay gudato yacni nimanka inoogu jira baarlamaanka ee hadda inoo fadhiya baarlamaanka nimankaasi waa nimanka dhibaatadan aynu sheeganoo dhan kowka laana waa maxay waxay ku yimaadeen sifa aan hagaagsanayn yacni dadkan wax u qaban lahaa looma dooran ninka sabab oday baa watay kadibna meeshu baa la fadhiisay aqoon allaala aqoon u leeyahay iyo wuxuu waajibkiisu yahay garan maayaan waxay markaa maanta ina kaliftaa kolka wax dhaxaanba halkay nimankaasi ka hadli lahaayeen inuu oday ka hadlo oo oday ka doodo ninkii yacni dadkan u doodi lahaana wuu iska shaqo tegayo wax allaale wuxuu ummadda u qabtaa ma jirto hadday abaar tahay uma hadlo haddii dadkiisa la dilo ama deegaankiisa uu dil ka dhaco guddiga nabadgelyada uma yeedhayo odhan maayo maaragtay maxaa dadka loo laayay qoladii yacni nabadgelyada shaqada lahayd lama kulmayo oo ma raadinayo sababtay waxa kani u dhaceen waa nin kaliya mushaar u doonta uun dawladda iyo baalki moodayana in isaga lagu siiyo wax maaragtay asxaan lagu siiyo moodaya dadkii uu shaqada xilkan u dhiibtay ee fadhiisiyay kursigan uu ku fadhiyo kuma noqdaan oo ma yiraahdaan maxay ka maqan yacni ma yiraahdaan kolka meeshooda ay balaayo ka dhacdo balaayadan dhacday maxaa u dhacday maxaa kalifay imaga waynu arkanaa deegaankeenii waxa ka dhacaya waxa aynu sheegaynay maanta aynu ka hadlaynay inagoo shacaba raggii loo doortay inay waxan ka hadli lahaayeen oo ah kuwii inagu matalaada tooska aynu matalayay oo golaha baarlamaanka inoo fadhiyay qof kalmad yidhi ma haysaan horta xukuumaddan jilicda sanle ee beel nacaybka ku suntan ee raggayagii iyo weli salaadinintayadii aanay ka falcelin markii laba meeyda la saaro laba meeyda naloo dhigayo wallaahi waxaan leeyahay Somaliland saa ku sii jiri mayso dib xukuumaddu dadkeega hayb nacaybkii ku kala soocayso ha ka foojignaato waayo dadku Somaliland la wada leeyahay ba xukuumadda loo dhiibay Somaliland la kala leeyahay oo hayb kaliya tan la kala soocayo looma dhiibin xukuumaddan cirro waxaan leeyahay dadkaaga iyo shacabkaaga ayaad wax ku tahay waxa la yiri xaaje tuuli toosimeyse tuura naga tago dawladii hore waxay ku tagtay teedii baad samaynaysaa hayb nacaybka anagu waxaan ku leenahay markaa ku xigta ee dhibaatada inta leegna loo geysto falcelin degdega ee Somaliland la wada leeyahay jiri mayso waayo anagu dulqaadka ma lihiin waayo anagu maanta laba laga saaro labana loogu bedelo damiirkuna ma siinayo xukuumaddan jilicda sanle waxaan u leenahay isa soo adkeeya sidan xilliguma sii hayn karo waayo Somaliland la wada leeyahay baan anagu ku dhiibnay shalay adeerkay macaarad waxaan ugu lahayn isbedel baan raadinaynay isbedelkii meeyay ma dagaal baa ma ina reer kaliya ta la haybsacda waxaan ku leenahay xukuumaddan jilicda sanay isa soo adkee saami qaybsikeen dawlad la wada leeyahay nabadgelyo ka jirto ayaa laga rabaa haddaad keeni weydo jawaabteeda waad helaysaan aad iyo aadna waan nii salaamaya reer Germany and reer Holland iyo Belgium I think waa laga joogaa filayaa aad iyo aad baan nii salaamayaa marka u horeyso horta waxaan u mahadnaqayaa ururka uu askariga hogaaminayo ee jiidali oo sabab u ah caawa halkan inaynu isugu nimaadno oo inteenaasoo qof oo runtii isu keenay horta waan mahadnaqayaa askariye waxaan mahadnaqayaa ururka jiidali waxaan mahadnaqayaa gudoomiye ku-xigeenkiisa iyo dhammaan reer Germany inta halkan ka joogta aad iyo aad baan ku mahadnaqayaa reer Holland ayaa aad ugu badan halkan caawa sawirka ku hayo way mahadsanyihiin aad baa u mahadsantihiin track dheer baa soo gasheen aad baa u mahadsantihiin askari waxaan leeyahay adigana ururka aad hogaaminayso ee jiidali
waxaan rajaynayaa magaciisa inaan kor u qaadi doono aniguna waan qayb lixaadna ka qaadan doono inuu ururkaasi noqdo urur hirgala oo caan ka noqda dhammaan deegaanada Somaliland digto oo dhan haddaan intaa ka gudbo Subeer Awal inaan halkan ka hadlaysay ma dhaweyto kelmad very important ee soo hadal qaaday Subeer Awal maaha Ciise Muuse Sacad Muuse maaha waxaa jira Baha Muuse waxa weeye 6 Subeer Awal waa 8 weeyaan 6 ka midii may tarmin marka 6doodii waxay isku noqdeen way isbahaysteen oo wax loo bixiyay Baha Muuse magaca Baha Muuse marka osto oo Sacad Muuse ama Ciise Muuse soo hadal qaadaan wayna Baha Muuse la soo hadal qaadaan laga bilaabo waxaan jecelahay idinka codsanayaa magaca Baha Muuse waa in uu kor u kacaa oo uu sida ay labada beelood karaba magacoodu korka u kacsan yahay markasta laga hadlayo meel kasta social media dhalinyarada markaa isticmaalaysaan Habar Awal ma aha Subeer Awal ma aha Sacad Muuse Ciise Muuse taa ogaada waa kula dardaarmay qodobkaas hadal runtii halkan waa laga wada hadlay qof kastoo hadlay hadal aad muhiim u yiri waxaan xoojinayaa hadalkii qof kastoo halkan mikrofoonka qaatay uu yiri ahaa tacsida aan u dirayno waalidiinta iyo caruurteena maanta talaagadaha ku jira ilaa hadda dawladdii xukuumadoodii aan ilaa hadda wax jawaab cad laga haynin xogta waynu haynaa iyaguna way hayaan xukuumaduna way haysaa inaguna waynu haynaa xogta hase yeeshee dee garan maayo xukuumaddu waxay uga bareeri weyday raadku halku galay waa la ogyahay ciddii ka dambaysay waa la tuusan yahay wax badan baa ayaa jira ma garanayo xukuumaddu waxay dee ilaa hadda ay u bareeri laadahay waxaan ka xumahay nin xildhibaan ah oo masaajidka aynin salaada ka jeediya khudbadda jimcaha ninkaasi waxa weeye kitaab gaara buu sitaa oo marba beejku doonayo la soo baxo jimcaba ciddu ataagayo ama qofku nacay bariyii hore ee Musabbix xukuumadda haystay waxa weeye khudbadiisu waxay ku koobnayd Subeer Awal iyo Musabbix Cabdi ay ku koobnaatay imika xukuumaddii uu taageersanaaba ayaa dalkii haysata haddana halkiibu ka sii wadaa shalay khudbadii jimcaha wuxuu ku akhriyay ninka magaciisa waa Siciid Sokeeye la yiraahdaa wuxuu ka mid yahay dadka waliba aanu u tuhunsannahay ayuu ka soo jeedaa aanu u tuhunsannahay beesha aanu u tuhunsannahay inay ka dambeeyeen dilkii labada dhalinyarada ee caruurteena talaagada ku jira ayuu ka mid yahay